السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعابي أونلاين كوليج معلنك waa macalinkiina injineer axmed abubakar nuur maanta waxaan bilaabaynaa hadduu la idmo koorsiga la magac baxay Wondershare Filmora waxaan ku jirnay multimedia waxaan ku qaadan doonaa hadduu la idmo saddex software Camtasia Studio 9 ama 2019 Filmora, Wondershare iyo Adobe Premiere aan ku qaadan doonaa hadduu la idmo. Okay, muxuu qabanayaa marka Filmora? Muxuuna ugu duwan yahay Camtasia Studio 9? Muxuuse ugu sii duwan yahay Adobe Premiere-ka? Okay, waxaa jiro software multimedia horta aad u fara badan yihiin sidaa daraateed waxaa jiro software oo professional ah oo dadka khibrada isticmaalo ama loo isticmaalo markii la sameynayo filmada oo kale waxaa kaloo jiro software oo sida yacni editingkiisa uu yaryahay kuwa waxyaabaha lagu sameeyo tusaale ahaan aroosyada oo kale xafladaha oo kale marka adiga aad diyaarsanayso sawiro oo kale markaad diyaarsanaysid marka adiga aad diyaarsanaysid sawiradaas yacni aad u sameynaysid yacni qurxin iyo music inaad dhexgelisid iyo qurxale inaad ku dhex dartid waxyaabahaas oo kale inaad sameysid ayaa waxaa isticmaalaysaa softwaredan Camtasia ama Filmora ayaad isticmaalaysaa waa softwareda yacni lagu fudud oo simple ah wixiisana diyaarsan yahay isla markiina yacni waqti yar aad ku habaysan karto ama ku dhammayn karto. Okay, waxaan hore usoo aragtay haddii aad Filmora haddii aad hore Camtasia usoo aragtay iyo haddii aad hadda Wondershare Filmora haddii hadda aad qaadanayso oo kale maxay ku kala duwan yihiin Camtasia Studio 9 iyo Wondershare Filmora? Okay, labadooda marka si loo fiiriyo waxaa isticmaalo dadka caadiga ah oo anaga oo kale ayaa isticmaalo oo markaad diyaarsanayno xafladaha oo kale markaad diyaarsanayno sawiro qurxinta waxyaabahaas oo kale marka diyaarinayno oo simpleska ah waxaa isticmaalaynaa labada software waxaan soo qabanay labada software yacni isleenahay way kaga gaafin karaan softwarada kale oo aadka u fara badan marka markii aan fiirino Camtasia symbol waa asaga wixiisa uu kooban yahay Filmora muxuu kaga duwan yahay? Filmora wuxuu kaga duwan yahay waa uu ka advanced yahay Camtasia Studio 9-ka. Okay, advance markaan ku leeyahay yacni waxa uu wax yar ama waxoogaa yar oo uu kaga dheer yahay Camtasia yacni waxaa xoogaa advanced Wondershare Filmoraha ayaa xoogaa advanced sida aad ugu diyaarinayso Camtasia waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaar oo aad gacantaada ku sameynaysid ama adiga aad sameynaysid oo kale in aad Filmora ku aragto simple yacni hal shay aad soo qaado oo diyaarsan yacni in aragta laga yaabaa sida Camtasia markaad adiga gacantaada ku sameynaysid oo yacni tusaalaha moving oo kale marka qofka soconayo ama markuu text scrollka oo kale markuu soconayo kan uu diyaarsan yahay kii horena yacni Camtasia adiga diyaarinayo scrollingka adiga ayaa diyaarinayo oo adiga sameysanayo laakiin Filmora tusaale ahaan waa marka kasoo qaado waa meesha ugu yar Filmora uu diyaarsan yahay yacni scrollingka waa soo qaadaysa kaliya waa gelinaysa. Okay, macnaha waxyaabaha qaar adiga arki doono markii cashirka aad dhex gasho haddii aad horey usoo qaadatay Camtasia Studio 9 haddii aad hore usoo qaadatay waxaad arkaysaa Filmora wuxuu kaga duwan yahay adiga hadhow yacni adigoo lagu sheegin adiga hadhow kala saari karo wax saas uma dubno oo laakiin xoogaa yar uu ka advanced yahay waxaa is leenahay
يعني labaduba ha wada bartaan ardada waayahay muxuu ugu duwan yahay labadaani Adobe Premiere muxuu ugu duwan yahay Adobe Premiere waa advance labadan uu ka advanced yahay waa professional filmada caadiga ah loo diyaariyaa tusaale ahaan qof halkan fariyo oo kale oo hadlaayo ayaa waxa arkaysaa isla asagii soo galay haddana dhinaciisa fariisanayo haddana hadlaayo waay sidee ku dhaceen waxaa lagu sameeyaa Adobe Premiere ayaa lagu sameeyaa haddii aad aragtay videoyada introga soo galaya wax noocaas oo kale hadii uu ka advanced yahay labadani uu ka advanced yahay kuwan simple waaye waqti yar ayaad ku kooban kartaa laakiin Adobe Premiere filmada musalsalada iyo maxaa la dhahaa riwaayadaha waxyaabahaas ayaa lagu diyaariyaa yani dadka caadiga way badanaa software-ada caalamka markii hore Adobe Premiere xitaa يعني ما جيري جيرين واستعمالي جيرين dadka khibrada way isticmaali jireen filmada laakiin lama soo shaaxbixin يعني lama ogoleen in يعني laga dhigo public in laga dhigo lama ogoleen laakiin hadda waxa arkaysaa anaga iska isticmaalayno oo waxa rabna anaga ku sameeysanayno sidoo kale software kala jiro oo Adobe After Effects la dhahaa jiro isaga Adobe Premiere ka xoogaa uu ka fansan yahay isagana marka waxaa la sameeyaa marka software waxaas oo dhan Adobe Premiere iyo arkaysid iyo Adobe After Effects iyo waxaas oo dhan markii hore macnaha lama soo shaacbixin oo public lagama soo dhigin laakiin hadda si arday kasta ama qof kasta oo uu faa'iideysto ayaa yani loo soo public looga soo dhigay sidaa darteed anaga ka faa'iideysanayno waxaan qaadanaynaa coursigeena waxaan ku qaadanaynaa oo multimedia ah Camtasia hore u soo aragtay haddii haadan hore u soo arkinna hadda bilaabayso waxa weeye maahan Filmora kaga sii wadan kartaa sidoo kale waxaan ku xijin doonaa haddii waa leedmo Adobe Premiere haddii waa leedmo coursigan waxaan ku qaadan doonaa marka Wondershare Filmora 9 aan ku baran doonaa haddii waa leedmo